kulantii wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena oo xiiso badan aan ku soo qaadi doonaa kulan ka dhacay magaalada Addis Ababa oo la sheegayo inuu dhex maray saraakiil ka tirsan xisbiga la oran jiray Nabad iyo Nolol iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo la sheegayo inuu ka qabsoomay magaalada Addis Ababa. kooxdan ayaa la sheegayaa inay u shireen dowladda Soomaaliya oo haatan hogaamiso xisbiga lagu magacaabo Dam Jadiid, waxaana la tilmaamayaa in ay qorsheynayaan qaabkii ay u kala jabin lahaayeen kooxda Dam Jadiid. haddaba barnaamijkeena ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan haddii uu Rabbi idmo. waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa golaha baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa diiday faqrad ay la luudeysay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Sacdiya Samatar oo la sheegay in dhawaalaba ay dooneysay in la baasmareeyo wax loogu magac daray xeerka jinsiga. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena aan ku soo qaadan doonaa haddii uu Rabbi idmo. waxaana barnaamijka igu weheliya saaxiibka Gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya. haddii aan ugu horeyn weydiiyo saaxiibka su-aasha ugu horeysa ee ah Gooni, bal waxaad nooga warantaa kulanka ka dhacay magaalada Addis Ababa ee kooxda Nabad iyo Nolol iyo Siciid Cabdullaahi Dani ku dhex maray qaabka uu dhacay iyo sidoo ahaa. horta faragooda waa maasan tahay kulanka meeshaas ka dhacay horta laba group ayay kala ahaayeen. Mahdi Guuleed iyo oo xildhibaan hadda ah, Kulan Jiis oo asagana xildhibaan ah, iyo Lafta Gareen oo raggii hore Nabad iyo Nolol ah. saddexdaas si gooni ah magaalada ugu sugnaayeen. marka waxaa asna meel kale hotel ku sugnaa Siciid Cabdullaahi Dani. marka saddexdooda waxay isku keeneen fikir wanaagsan. waxay dhaheen horta waa inaan intaan dhex galno oo ninkii Dani intaan u tagno oo aan ka dhaadhicino maadaama Dam Jadiid uu wax ka waayay Nabad iyo Nololna oo la dagaalay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan qadka soo gelino oo aan dhexaadino Dani iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si waliba aan wanaagsan u heshiisiino si loo gudbo arrimihii qabqabsiga faraha badnaa iyo waxyaabihii qaldanaa oo Dani uu ku hadlay waa ku andacon jiray. marka taas markaan dhameeyno kadib qorshe kale u degsan waxay dhaheen markaan taas dhameeyno oo Dani isku soo dhaweyno ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan sameynaynaa mooshinkaasna waxaa hormuud ka noqonayo xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada Puntland iyo xildhibaanadii Nabad iyo Nolol oo wixii ka haray. marka la isku biiriyay saddexdooda ilaa 150 160 xildhibaan inay noqdaan loo badinaa. marka mooshin ay diyaarinayaan. mooshinkaasna waxaa xilka looga qaadaa Xamse Cabdi Bare ra'iisul wasaaraha. marka heshiiskaas ay diyaariyeen isla garteen Mahdi Guuleed iyo Kulan Jiis iyo raggaas. marka aan ka dhaxgale marka hore waa ajanduhu waa laba qodob oo marka hore in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la heshiisiyo Siciid Cabdullaahi Dani. qodobka labaadna sidii xilka looga tuuri lahaa ra'iisul wasaaraha oo la soo kaashado. aad iyo aad waa saas. qodobkaas markuu saas ku hirgalo kadib waxaa la sameynayaa wada hadalka markuu dhamaado oo Farmaajo iyo Dani isku soo dhawaadaan kadib waxaa loo gudbayaa arrinta kale oo ah in macnaha mooshin laga keeno Xamse Cabdi Bare si xilka looga xayuubiyo. marka qorshahaasna waa qorshe aad u weyn. xildhibaanada Koonfur Galbeed markii la isku daro iyo xildhibaanada Puntland oo lagu sii daro taageerayaashii Nabad iyo Nolol 100 ku dhow ayagana ama 100 gaarayaba markii la isku daro xildhibaan aad u fara badan meesha ka soo baxayo. marka Xamse Cabdi Bare in mooshin laga keeno markii hadhow mooshinka laga keeno ilaa 200 oo xildhibaan in qurka looga jaro oo Xamse Cabdi Bare hawada laga saaro. marka Dam Jadiid saas inuu kala jibiyaa loo baahan yahay. haddaba sidee buu u soo dhaweeyay Siciid Cabdullaahi Dani maadaama oo la rabo muxariga weyn ee waxaan dhaqaajinayo inuu asagu noqdo sidee buu u soo dhaweeyay wararka aad ka helaysa magaalada Addis Ababa? horta Siciid Cabdullaahi Dani arrinta kale oo hadda oo qorshaha u degsan oo nin Xamse Bare xilka laga qaadayo. horta Xamse kama hor imaanayo Siciid Cabdullaahi Dani. Xamse xilka laga qaadayo waa farxadiisa mid oo ka hor imaan kara maaha. laakiin mid la wadaagay ayaa ah arrinta Farmaajo in la heshiisiyo ayadana mid oo ka hor imaanayo ma aho. waxaa lagu leeyahay Siciid Cabdullaahi Dani markii Xasan Sheekh Maxamed soo baxay oo rasaar Dani laga dhigi waayay oo nin kale oo reer Puntland laga dhigi waayay oo nin macnaha reer Jubbaland laga dhigay xanaaqkii ugu darnaayo gaaray lacagna ka dhamaatay. marka farxadiisa waa in Farmaajo la heshiisiyo oo tiim Nabad iyo Nolol macnaha markii la heshiisiyo Fahad Yaasiin uu ka taageero xag dhaqaale iyo xag siyaasadba Siciid Cabdullaahi Dani soo Puntland ugu soo laaba lahaa. Farmaajona laga taageero si Xamse Bare meesha looga bixi lahaa oo Dam Jadiid loo kala jibin lahaa. hadhowdina Farmaajo oo taageero uga heli lahaa Koonfur Galbeed maadaama ay isku fiicayeen Lafta Gareen oo ay yihiin Nabad iyo Nolol hore. ninka la yiraahdo asagana inuu barnaamijka oo saas ku balaariyay xogtaas ayaa meesha ku jirto oo Siciid Cabdullaahi Dani asagana qorshe kale ay wataa. marka qorshahaas markuu dhamaado ayaan wararka ka soo baxaa faahfaahin doonaa. arrinta in uu ku jiro ninka lagu magacaabo Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed
lafta gareen lafta gareen iyada arrintaasi ma xaqiiqa marka lafta garan uu ku jiraa oo lafta garan waa nin nabad iyo nolol ah marka kama hor imaan karo barnaamijka nabad iyo nolol wadato qorshahana waxaa wata kulanajiis iyo mahdi guuleed iyo lafta garan oo ragga nabad iyo nolol dhammaantood sayid cabdullaahi danin inuu farmaajo u dhawaado hadda war rabaa maadaama xashi maxamed ay isku dhaceen marka qorshahaas oo dhan oo saas u daba dheer ayaa lagu dejiyay Addis Ababa maalmaha soo socdana waxaa leeyahay beri iyo maanta waqtiga noqotaba in qadka telefoonka la soo geli maxamed abdullaahi farmaajo lala heshiisiyo sayid cabdullaahi dani markii lala heshiisiyena qorshahaas dheer la wada qabto sayid cabdullaahi dani lagu taageero siduu Puntland mar labaad kusoo noqon lahaa maxamed abdullaahi farmaajona loogu gogol xaaro in macnaha baarlamaanka ay mooshin ka keenaan ninka la yiraahdo Xamse Barre hawshan saas lagu wado isfaham guudna oo dhexmaro dani iyo farmaajo qorshuhu waa intaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa daawadayaal gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya gooni haddaan dib kugu soo noqdo waxaa jira in mooshin uu laalay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo in dhawaalaba ay la luudeysay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sacdiye Samatar arrintaasi say u dhacday Sacdiye Samatar horta Sacdiye Yaasiin Samatar qorsheedu wuxuu ahaa waxay ku dhaaratay in baarlamaanka ay marsiin doonto arrinta jinsiga waxyaabo badan oo isla maleegana way jireen ninka la yiraahdo Saciid ninka la yiraahdo baarlamaanka gudoomiyihiisa ninka la yiraahdo Madoobe iyo Sacdiye Samatar Yurub ay qandaraas ka soo qaateen barnaamijku waa la isla wada ogaa 10 milyan bay ku qaateen 10 milyan oo lacag ay qaateen marka hadii oo Aadan Madoobe baarlamaanka arrintaas la soo istaagi lahaa horta fashil ahaaleed gudoomiyihii waa marka ayada gudoomiye ku-xigeenka sida remote-ka maaragtay loogu isticmaalo ayada la dhaqaajiyay dhaqdhaqaaqeedina wareer ka soo baxay marka isqabqabsiga batay baarlamaankii kiiska oo xumaaday ugu dambeyntii maanta labada aqal ee baarlamaanka soo fariistay cabdi xaashi waxa la soo ag fariisiyay iyo Aadan Madoobe xaaladii markii la qiimeeyay Aadan Madoobe waxa uu soo bixi weysay inuu dhaho arrinta jinsiga waa horgeyn doona baarlamaanka wuxuu yiri arrinta jinsiga iyo wax diinta ka hor imaanaya midna baarlamaanka Soomaaliya ma horgeyn doono marka wuxuu mooshinkaas ma qabanayno yiri wax shariicada islaamka hor imaanayna oo nabigeena calayhi salaatu salaam garab bonsan baarlamaan ma horkeenayno mooshin inaan qabano jinsi ku saabsan maba naga suuragelayso marka Sacdiye Samatar hadda dhiiqa ku fadhisaa haddii kiiskaas oo ku wada jireen marka hore lagu eedeynaa in labadooda ku jireen haddii marka oo Aadan Madoobe ka siibto Sacdiye Samatar ay seefta dul saaran tahay ayadana u badan tahay in xilka looga qaado oo mooshinka hadda maadaama kiiska arrinta la qaboojiyay ayadaa keentay ayadana wado ayadana hormuudkeed ayadana ka hadashay marka seefta ay qaadi doontaa Sacdiye Samatar ay qaadi doontaa maadaama Aadan Madoobe si siyaasadeysan uga dhex baxay waxaan waa siyaasad mogtahay haddii dhankan ay u socoto aad fahmayso dhanka kale loo aadaa gooniyo aan kaa dhexgalay waxaa la tilmaamayaa gudoomiyaha iyo Sacdiye iyo weliba rag kaloo xubno ahoo baarlamaanka ku jiro oo tir ahaan la sheegay ilaa iyo 10 inay yihiin ayaa qaatay ninka lagu magacaabo gooniyo ilaa iyo 10 milyan oo dollarka Mareykanka inkastoo qayb ahaan loo siiyay haddana waxaa la sheegayaa lacagtan oo ay hormuud u ahayd dowladda Norway in haddii ay xeerka jinsiga ay ansixin waayaan laga rabo lacagtaas ama la dili doono waa sax arrintaas waxa la sabab arrinta marka say isu qabanaysaa horta markay lacag soo qaadanayeen horta marka hore barnaamijka si dad bana loo geliyay heshiiskana waxyaabo kale lagu dhex qariyay gabdhaha la kufsado in macnaha laga hortago oo aan gabdhaha inta la kufsado ay iska soconin oo macnaha aan lagu xadgudbin oo dadka laga tirada badan yahay la dhibaateeyo dadka 4.5 ka dadka 4 ka loo yaqaano oo macnaha in mar walba dhibaateeyo dadka 4.5 ka loo yaqaano oo gabdhaha Soomaaliyeed la dulmiyo marka gabadhii aan la dheer ka dhalanna inta la dulmiyo hadana laga socdo ama la kufsado oo waxba laga soo qaadin macnaha horta ay barnaamijkaas ay wada kaga dhigteen laakiin barnaamijku waa loo hoos geliyo lacagtan qaata liiri kana hoos geliya marka barnaamijka doo fashilmo Norway horta inta Muqdisho imaado Aadan Madoobe Sacdiye kuma dhex dili karto hadii aysan dad u soo adeegsan laakiin de baarlamaankii waa niman baarlamaan ka tirsan iyo naag baarlamaan ka tirsano in ciidamo aad u fara badan ay waardiyeen dowladda federaalka Soomaaliya si lagu dilo way adkaan doontaa oo nin walba waxa la socdo ugu yaraan 15 gaari oo technique ah waa dad la waardiyeenayo hadii si kale loo gaado ama marka xilka laga qaado la gaado ama la isku qarxi waa gooni oo sida hadda Soomaaliya ka jirto kale laakiin wax bareer ah oo dowladda Norway hadda ay ku sameyn karto ma laha laakiin mooshinkii iyo barnaamijkii socday Sacdiye xalaway cala cashay barnaamijka saan ma ahayn kan ma ahayn xaaladdu waa aragtay in labada gol ee baarlamaanka ishira markay aragtay cala calkeeda soo baxay marka waxaan u maleynayaa barnaamijka inuu saas ku dhamaaday laakiin Sacdiye maalin noqoto in xilka laga qaadi doono aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya daawadayaal barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan dib ugu kulmi doono mid kan mid lamid ah waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo